guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Kenya u qaabilsan tamarta iyo shidaalka ayaa fuliyay kormeer indha-indheyn ah oo ay ku tageen xarumaha waaweyn iyo bakhaarada kaydka shidaalka si ay ugu kurgalaan xaaladda dhabta ah ee sahayda tamarta. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay soo baxeen cabashooyin xooggan oo la xiriira gabaabsi laga dareemay qaybo ka mid ah dalka, taas oo dhalisay tuhun ku saabsan in xogta ay bixinayso shirkadda dhuumaha shidaalka ee Kenya ay ka fog tahay xaqiiqda ka jirta suuqyada. Inkasta oo maamulka shirkadda dhuumaha uu si adag u sheegay in kaydka shidaalka ee dalka yaalla uu yahay mid ku filan baahida guud, haddana mudanayaasha baarlamaanka waxay doorteen inay si foolka fool ah u soo xaqiijiyaan cadadka shidaalka ee ku jira haamaha waaweyn si meesha looga saaro jahwareerka iyo walwalka ay qabaan muwaadiniinta. kormeerkan ay xildhibaanada ku mareen xarumahaas lagu kaydiyo shidaalka wuxuu ujeedkiisu ahaa in lagu kala saaro dhalanteedka iyo dhabta, gaar ahaan markii ay badatay hadalhaynta ku saabsan in dalka uu ka jiro yaraan dhanka shidaalka ah. sidoo kale arrintan waxay ku soo aaday xilli saacadaha soo socda la filayo in guddiga dowladda u qaabilsan arrimaha tamarta ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan qiimaha shidaalka noocyadiisa kala duwan bisha soo socota, iyada oo Kenya 14 bil kasta ay tahay maalinta lagu dhawaaqo saliidda qiimaha lagu kala iibsanayo. guddigan baarlamaanka ka socda ayaa la filayaa wixii ay soo arkeen inay baarlamaanka u gudbiyaan maalinta Khamiista ah. These fuel operators and business people should learn that it is wrong for you to hoard in anticipation of a hike. Most importantly, it is a withdrawal of license to operate. And I think that should be the ultimate penalty that should be undertaken by EPRA. Anybody found culpable, either hoarding, charging excess more than the pump, do we escalate that? If the PS, it should not be the last person. It should be taken to the Waziri. If Waziri is not satisfied, it should go to the head of the presidency. That is the issue that we are going to look into the legislation, so that nobody again uses something in the law to run away from some responsibility.